ujeedada halkan waxa weeye waxaan qayb ka nahay booqashadii rasmiga ah madaxweynaha ku yimid wadankan Qatar. booqashadaas oo ahayd booqashadii ugu horeysay oo state visit waxa loo yaqaan booqashada madaxweyne oo rasmiga wufuudi waxaan ka mid ahayn wadanka timi qayb ka ahayd wafdigaas. waxyaalihii laga wada hadlay labada dowladood dhamaantood la isku afkartay haddii alla idmana fulintooda ayaa bilaabanaysa dhawaan. saad la socotaan hadda ka hor waxaa jiray bishii November sanadka hore heshiisaan galay oo wadooyin jidad la dhisayo xamar iyo afgooye iyo xamar iyo jowhar, mashaariic waxbarasho iyo kuwa shaqo abuura intiiba waa socdaan. kuwii jidadka iyo dhismayaashii dowladda la dhisayay beri maasaadnimo 17 bisha ayaa haddii alla idmo kuwii dhismayaasha soo gabagaboobayaan oo shaqadii dhismayaasha wasaaradaha hirgelaysa. tii waxbarashada waa socotaa, wasaaradda waxbarashada waa sarkan. marka guud ahaan waxyaalihii laga wada hadlay iyo booqashada marka la fiiriyo jawiga guud sidoo ahaa si aad u wanaagsan oo qanacsan yahay u dhacaan. waan u mahadnaqaynaa dhammaan shacabka iyo dowladda Qatar. waan mahadsan yihiin insha Allah anagana dadaalna dhinacayaga waxay ku xiran ku saabsan si xiriirka loo sii xoojin lahayn si adkeynayna. waxaan rajeynayaa haddii alla idmo shaqooyinka noo yaalayna si ugu dhaqsaha badan iyo waqtiga loogu talagalay ku fulin doono haddii alla idmo. wasaaradda caafimaadka anagu ku hadlayo magaceeda waxaan naqaabilay wasiirka wasaaradda caafimaadka ee Qatar. waxaan saaka kala saxiixanay aniga wasiirka caafimaadka Dr. Xanaan Al-Kuwari heshiis is afgarad labada dhinac ee dowladda Soomaaliya iyo dowladda Qatar wasaaradahooda caafimaadka halkaas oo naga siin doonaan kaalmooyin badan oo ku aadan xagga tababarada medical professionalska Soomaaliya hawlaha caafimaad ee la bixinayo asaasiga inay aad looga kaalmeyn doonaan iyo wixii baahi degdeg oo marka Soomaaliya wasaaradda caafimaadka la soo kulanto dhinaca emergency-ga